saddexan maxamed cabdikariin xirsi ku magac dheer khayaaladiin وهاجاج محمد بل سوشيال ميديا قبيسة كلا جديسن وحوريجيا runtii arin aad runtii looga xumaado oo dadka Soomaaliyeed aad ay uga xumaadeen oo muujinaysa saddex wiil oo gabar arin aad u xun u geysanaya oo kufsiya bal arintaasi bal faahfaahin naga sii goormee dhacday maxaa ka taqaanaa ragaas waxayna ka dhacday Galdogob meel la yiraahdo duleedkeeda marka waxa arintan geystay dhalinyaro Soomaaliyeed oo maaragtay aad dad u daayar ah waxay u dhaceen qaab adugu iska dad waxay ahaayeen social media iyo waxa sawiradan iyo fahamsaneen waxayna sameeyeen sawiro iyo waxyaabo ku safaadeen ay iska qaadeen marka dadka Soomaaliyeed social media ha isticmaalay waxaan ka codsanayaa arintan gabi ahaan waa la dhameeyay oo macnaha dadkii dad isu xigay arinta xaliyay oo ka wada fariistay waxa kale oo ay sameeyeen gabadhi xataa barnaamijkeeda waa la xaliyay hadda barnaamijkaas maamulka xataa intuu gacan la soo galay baa waxa la yiri barnaamij waa ku filanahay annaga dhameynayno magarad وهاجاج معمول كبنتلان maamulka Puntland baa la yiri annaga ku filan oo dhameynayno sidaasaan lagu kala dhameeyay arintii haddana waa la xaliyay wax dhibaato ama jiraan dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa waxaan ay baraha bulshada ku wadaan inay toojiyaan nin jecel ma laha qof walaashiisa oo dhibaato loo geystay in baraha bulshada la soo dhigo gabadha ehel dhawaatihiin aniga gabadha ehel baan nahay dadkii maaragtay dad iga xigana way jiraan balse ehel baan nahay oo dad waxaan nahay maaragtay xigta وهاجاج wararka waxay sheegayaan in raga falkaasi geystay ay aan sidan xogta ku helayno halka ay Galdogob naga soo gaaraya inay mid kamid ah ragaasi oo nin suldaan ah oo wax u yahay mid kamid ahna xildhibaan oo wax u yahay biskooladahaasna ay wataan oo badanaan ay gabdhaha ay handadaan bal arimahaasi maxaa wax nooga sheegi kartaa qiyaaladiid walaal horta haddaan kuu sheego horta magaalada meesha arinta ay ka dhacday magaalo hub la qaato ma aha magaalo waxa weeye hub aan lagu aqoon oo magaalo nabdeed ah sidoo kale dhalinyaro gaartay oo ma aha in ay maaragtay hub qaataan barnaamijkan qaab wuxuu u dhacay maaragtay waadqaana dhalinyaro aad u yar weeye qaab wuxuu u dhacay gabadha oo maaragtay inta la soo kaxeeyay oo kaleeto macnaha la xoogay oo kale qaabkaas kale u dhacay wax hub ah oo la isu qaatay ma jiraan xildhibaanka iyo dadka kale oo mas'uuliyiinta ah sheegaysida iyaguna maba dad kale fogba ma aha dadka hawsha dhex martay ma garad وهاجاج falkan ma falkii ugu horeeya oo ka dhacay deegaanka waa falkii ugu horeeyay oo deegaanka ka dhacay walow dadku ay kufsiyada Soomaaliya waa iska jiri jireen balse wax nacaan oo kale oo sawiro muuqdo watan waa wixii ugu horeeyay bay macnaha u maleynayaan sidaan anu ma wada arag kufsiya sidaan oo kale taana ma arag oo muuqaal wato ma garad وهاجاج hadalkaaga waxaan u gartay in arinta la xaliyay oo wiilashu ay magaalada iska wareegayaan gabadha xalkeedii ka waran arinta wiilashu horta magaalada inay wareegayaan kuma xaqiijin karo ayagoo la hayaan ogaa beesha arinta ay ka dhex dhacday baana maaragtay arintan xilkeeda qaaday oo ayaga isku tashadeen oo dhaheen annaga joojinayno dadka Soomaaliyeed ee baraha bulshada soo dhigay waxaan ka codsanayaa in maaragtay waxaan si fiican uga taxadaraan mar hore taldeey bay damqinayaan dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay dhamaantood barnaamijkan joojiyaan ay baraha bulshada ku faafinayaan aad baad u mahadsantahay qiyaaladi